الله يا رسول الله سلام عليك يا رافع شان والدرجة الفصل الله على البيجي أنا أتلنا كل بالبرجي الله كل بيت أنت ساكنه غير معتجين إلى سرجي الفصل الله على البهجي degmada Kaaraan gaar ahaan xaafadda ceelka Calasow waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay masjidu Sheekh Abuukar Dhacdhacow munaasabadu ahayd mid aad u ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay mashaayikh mas'uuliyiin xar iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu casuumay masjidu Sheekh Abuukar Dhacdhacow oo munaasabada daafurkiisu ay ka dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka mid noqonayaa masaajidda uu gacanta ku hayo isla markaana hoos timaada caalimka weyn ee Sheekh Ismaaciil Xaaji Cali Cumar mashaayikhdi iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabada ayaana goobta ka hadlay iyagoo ka sheekeeyay qiimaha uu leeyahay masjidka waxayna dadka deegaanka iyo cidda gacanta ku haysaba ugu baaqeen in ay u istaagaan masjidka horumarintiisa mashaayikhdi goobjooga ahayd munaasabada daafurka masjidka waxaa ka mid ahaa Sheekh Ismaan Maxa Indhoy Sheekh Cabdulaahi Cubayd iyo sidoo kale Sheekh Abuubakar Sheekh Axmed Yare si gooniya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii magaalada Madiino uu haajiraay waxaa la og yahay masjidu Quba masjidka Layla ayuu dhisay awwalu masjidin usisa ala taqwa masaajidkii ugu horeeyay ee taqwada islaamka lagu asaasay ayuu nabigu dhisay calayhi salaatu wasalaam Quba markii uu maraayay waxay ahayd maalin isniin ah oo masjidkaas dhismihiisa isniinta iyo talaadada iyo arbaca iyo khamiis afartaas maalmood lagu gabangabeeyay maxaa yeelay dhismaha hadda waqtigan jira iyo xilligaas imkaaniyaadku isma lahayn waxaa laga dhisayay geedo iyo laantimireedyada iyo nabigu sallallahu alayhi wasallam marka afartaas maalmood uu ku gabangabeeyay jumcadina waa ka sii tagay ilaa uu magaalada Madiino ka sii aaday waxaa la yiri marka nabigu markii uu sii maray uu gaaray heer Bani Saalim ibn Auf halkaas salaada jumcada ay ku qabatay nabigu meeshaas uu jumcada ku dushiyay waa iskala sii baxeen ayagoo 100 raga ah ee seefahooda wata heer Bani Najaar iyo markaas magaalada Madiino oo nabigu aaday calayhi salaatu wasalaam waxaa la yiri maalintaas oo uu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam sanadka miilaadiga wuxuu ahay 622 bisha Sebtembar 22 waa sanadkii ugu horeeyay ee hijriga nabigu sallallahu alayhi wasallam Madiina markii uu tagay reer Madiina waxaa la yiri gacmo furan iyo qalbi maxabba leh ay ku soo dhaweeyeen markii ay soo dhaweynayeen safay galaana la yiri nabiguna hashiisa markii loo soo kala orday oo nabiga lagu wada calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam da'uha fa innaha ma'mura hasha iska deeya waa amrantahay min Allah ya laga amray annaga dadka muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan dadka xaafadda degan waxaana laga rabaa annagana inaan noqono dad helo ajirka noocaas oo kala iyo marqaatiga noocaas oo kala inaan helno oo aan masaajidkeen imaaradiisa aan ku dadaalno oo masaajidkii aan soo camirno ilaahay wuxuu cadeeyay dadka noocaas oo wanaagsan inay yihiin dad iimaan la masaajidka sida u qiimeeyay nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam rajulka hadaad aragteen inuu ka caadiyay ilaahay masaajidda oo salaada ku ilaalihayo ku dhaxadkaarsahayo ku cibaadaysahayo fashhadu lahu bil iimaan adigana marka waxa laga rabaa inaad masaajidka soo amirtid oo aad shanta salaad ku ilaalisid oo aad ku adkaarsatid oo hadii fursad aad u haysatidna cilmiga aad ku akhrisatid ku baratid hadii aad ahlu tahay dadka aad ugu sheegtid nin masjidka ka caadala aad noqotid iimaana marka annagu markaaya sida nabigeena sheegay sallallahu alayhi wasallam
masjidku marka fadaa'ishiisu way badan tahay qof kasta oo muslim ah oo ku tacalluqo masjidka qiimo iyo sharaf iyo fadli ilaahay agtiisa ka leeyahay waad ka warqabtaan sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu xadiidkii ahaa saxiixayka ku yilay waxaa ka mid ahaa dadkaas maalinta carshur raxmaanka hooskiisa hoosaayaan qoraxdu soo dhawaato qof qalbigiisa mucallaqo bil masaajid uu yahay ka mid ah marka inaan qalbigayna ku xirno masjidka oo aan masaajidka ku dhaganaano wax badan oo faa'iidaha ku helaynaa marka waxaan soo dardaarmaynaa masjidkii waa la dhisay maanta waa la iftitaaxay inaan annagana qaybtayna imaarada aan ka qaadanno oo aan masjidkii soo caamirno khaasatan dadka xaafadda inayna masaajidka la ilaaliyaa la rabaa xadiis kale oo inda Caaisha laga wariyo radiyallahu ta'ala anha wa an walidayha oo isla dabarayna uu soo saara asuguna wuxuu ahaay oo nabiga ka wariyay saqaal nabiga uu dhahay man bana masjidan la yuridu riya'an wa sum'a bana lahu baytan fil janna qaydka labaad madniga hadii la fiirsho waa inuu san sumcadaan ahayn ismaas istusus aw dadka ka rabin sheegshan aw sanuga baanay masjid oo dhisay saanay tahay aw sanu dhisin oo ilaahay dartiisa oo dhisay ikhlaas ayaa qayda haddii ikhlaas uusan jirin ee markaasay jamaacaysi iyo meeshuuradaan iyo maal xalaal aan ahayn oo soo hirikaabisa walaxaad ka dhistay sidaqa jaariya naqamaa sheekho marka haddii la helo maaragtay ikhlaas la helo maal xalaal la helo markaas oo sidaqa jaariya naqahay ikhwatal aizaa marka masaajidu haddii la fiirsho sida aan ognahay Soomaalida gudaheeda horta masjidka dhismiisu waa badan yahay laakiin intuu xalaal u yahay Ilaahay naga yaqaan haddaan fiirino qaabka xoolaha loo tacbaan in xalaal yaraato uu filan hal ganacsadaan iyo sheekaysanaa ay wadaado wax warana ay xoolaha daldalayso muu fiirisa asuur say ku soo galaanaan dhaxnaa ku yimaahin say maarata intay ku yimideen ma fiirina ku sheego say ku soo galaana warkayna yaa waxaan masaajidaas waqf fiican ku talaa sheego ma helo ila hadaa radisagna waxaan wixii Ilaahay nala kulmeen arkayna laakiin hadda xoolo kama wad xabixino waa saasay ugu marka xoolaha waxaan leenahay laga wad xabaxsho oo xoolo xalaal raadi oo dariiq xalaal ku taca dariiq xalaal ku bixi saasa maartay leenahay dad muxsiniin ah ayaa masaajidka dhisay waxaana markaasi kamid ahaa Xaaji Axmed Qaali isaga ayaana ku hadlay afka dadkii muxsiniinta ahaa ee masjidkani dhisay waxa duruuftu kaliftay inaan u mahad celisho dhammaan ka soo qaybgalayaasha gaar ahaan Sheekh Ismaaciil iyo culimadii mashaayikhda ahayd iyo ajillada ahayd oo uu khidmeynay islaamka oo maanta soo camira masaajidkan iftitaaxiisa waxaan leeyahay dhamaantiin jazaakumullahu khayran Allah idinka abaal mariyo ka soo qaybgalkiina iftitaaxan mubaaraka ah insha Allah taala waa idinka mahad celinaynaa sheekha iyo culimada dhamaanteed Sheekh Ismaaciil iyo culimada ajillada oo ka soo qayb gashay waxaan kale u mahad celinayaa walaalahay reer Sheekh Abuukar oo runtii fuliyay dardaarankii adeerkay Sheekh Abuukar dhacdhacow oo ka dardaarmay fuliyay si qurux badan u fuliyay reer Abuukar oo horseed u yahay walaalkay Axmed Sheekh Abuukar dhacdhacow waxaan ugu mahad celinayaa fulintii ay fuliyeen arintaas bacdallahi ilaahi u sakhrayaa ku mahadsan anagana waxaan ku faraxsanahay maanta in masaajidka uu furan yahay waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu amalkan masjidkan lagu dhisay khaalisan lillahi ka dhigo insha Allah taala nagana aqbalo waxaan u mahad celinayaa kullu man saahama bi ay shay qof kasta oo ka qayb qaatay amal iyo qowl iyo wax kasta oo masaajidkan lagu taray qofkii ka qayb qaatana waa u mahad celinaynaa